khilaafkan hadda soo muuqday ee ka dhex muuganayo aqalka hoose iyo aqalka sare gaar ahaana warqadan shalay soo baxday ee aqalka sare ka soo baxday oo lagu muujinayo in guddigii isku dhafka ahay tala soo jeedinta sharci ee loo gudbiyey aqalka hoose inaynan ahayn midii laysla ogolaaday ee laysla diyaariyey midaasa hadda midda miiska saaran laakiin waa arrin soo jiitamaysa oo waxaan ognahay usbuucii hore sidaas si lamid aqalka sare inuu soo saaray go-aan guddiga joogtada oo ay leeyihiin 25 bisha ka hor waa in madaxweynaha iyo maamul goboleedyada isarkaan marka waxaad arkaysaa labadii aqal inay ku kala aragti gadisnaanayaan habka siyaasadda doorashada loo galayo dhanka kale waxaa muuqanaya xitaa soo maahan in senataradii aqalka sare laftigooda ay isku diidan yihiin qaabka wax loo wado horta guddiga joogtada warqada ay soo saareen ma aan maqal wax ka dooday ama wax ka keensaday laakiin gabadha oo senatarada aan dhegaysanayay midii ay dooda ka soo jeedisay waa xubin guddiga haddii sharci darro ay jirtana qofka laguma yaqaana taladiisa waxaa lagu yaqaanaa inuu la gudbiyo mooshin la leeyahay go-aanka guddoomiyaha aqalka sare oo saxiixa waa sharci darro dhanka kale markaan eegno sharciyan markii tan oo kale ay dhacdo waa khilaafka haatan ka muuqanaya in uu u dhexeeyo aqalkii sare iyo golihii shacabka madaxdii ugu sarsaraysay maxaa lagu kala saari jiray mar kastaba dastuura qoran aqalka sarena tilmaamaya awoodihiisa iyo waxyaalaha loo xil saaray aqalka hoosena tilmaamaya awoodihiisa wax loo xil saaray waxay ku xiran tahay keliya in la abbaaro maxaa laysku haystaa qodobada la isku haya maxay yihiin hadda dooda dabteeda waxay u socotaa oo ay ka taagan tahay aqalka hoose inuu leeyahay guddiga isku dhafka ahaa february la sameeyey ee heshiiska labada aqal lagu sameeyey tala soo jeedintoodiaan ka doodnay waana aqbalay laba qaybo ka mid marka ma aqbali karaan waa sharciya su-aasha meesha layskaga haysto ko dastuurka qodobka 79 oo ka bilaabana 8 ilaa 86 tilmaamayo waxaa la yidhaahdo diyaarin sharci ama habraaca sharciga loo diyaariyo labada aqalka uu ka bilowda maahane aqalka kala loo gudbiyaa marka aqalkan uu ka bilowdo hoose way ka doodayaan way ansixinayaan cod haldheeri marka ay ansixiyaan aqalka kala loo gudbinaa aqalka kala ka doodayo cod haldheeri ku ansixinaa markuu ku ansixiyo kadibna madaxweynaha loo gudbinaa madaxweynaha 15 cisho gudaheeda hadduu tala diidmo uu qabo talada diidmadeedu ku celinaa haddii uu tala diidma qabin sharcigaas uu aqbalaa oo waa saxiixa inta ka horeyso sharci halka kalna ma soo saari karo labada aqalna sharci soo saara sharci ma noqonayo haddii madaxweynaha saxiixin laakiin madaxda labada aqal baa ku heshiiyey maadaama waqtigii uu yaraa in guddi isku dhafa la sameeyo sidaas ay u soo sameeyaan xeer hoosaadyo golaha shacabka uu uga doodo halka ku meel mariya marka taa laftigeeda hadday ku heshiiyeen iyagoo madaxdii ah soo sharci ma noqonayso oo ma qabanayso aqalka sare maya dastuurka ma jiri karaa dastuurka heshiis laguma jiri karo dastuurka sharci kalaa lagu jiri karaa midda labaadna xataa oo xisiga caqliga bini'aadamka ku tusayo rationality-ga waxa ay tahay guddigay ku heshiiyeen oo isku dhafa inay sameeyaan guddiga isku dhafka haddii ku heshiiyeen may ka maarmaan maxaa aqalka hoose loo geeyo oo looga dooda maxaa looga maarmayn marka waxaa looga maarmi waaya aqalka hoose in la geeyo looga doodo waa in habraaca sharciga sida uu qorayo dastuurka la raaco doodaada waxaa ku jiray ama dad badanba ay wada qabaan kan waa iska xeer hoosaad hadduu xeer hoosaad yahay oo baarlamaanka keligiis uu ku dhaqmaayo way ansaxsan karaan looma baahno laakiin markaasito dhaqangalma ku yeelanayo xagga shuruucda kale dhaqangalna kuma yeelanayo doorashada waa inuu baarlamaanka keligiis isku doortaa ma u gudbi kara qaranka midda saddexaad oo dooda ka taagan tahay waxay tahay haddii saanoo kala dhacda maxaa la sameynaa xagga sharciga muxuu qabaa sharciga laba arrinuu tilmaamaa ko guddigii 17 xubnood ahaa ee isku dhafka ahaa hadday qayb ka mid ay ku dacwoonayaan ay leeyihiin waa nalaga been abuuray wixii aan ku heshiina ma aha wax ka gedisanaa la keenay meesha waxaa ka muuqanayo wax Soomaaliga aan ku leenahay been abuur haddii been abuur ay jiro guddiga qaba in laga been abuuray oo caddayn ay haystaan waa inay xeer ilaalinta guud ay u gudbiyaan ay yidhaahdaan dokumentiga waa nalaga been abuuray kii originalka ma aha kan originalka waa kana haddii guddiga kale ay ku doodayaan waxba ma aanaan been abuurin guddigan ku doodayaan waa nalaga been abuuray masabiday sameeyeen haddii la masabitana sharciga wuxuu u qorayaa iyadana inay masabidka ay xeraalinta u gudbeen ay yidhahdaan waa nala masabitay caddayntina waa tanaa shuruucdii la meel mariyey maxaa ku dhacaya marka sharciga ma noqonayaba haddii laysku haystoba waa been abuur iyo been abuur maaha waa in la xaqiijiyaa been abuurka marka hore ilan dembiyaa meesha ka muuqda dembigaas ka muuqda cidda iskalena waa in cadaalad